السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalkiin cabdilcasiis iyo channelkeena suldaanka mashaariicda maanta iyo sheeko guul oo cusub baan ka hadlinaa biidnillaahi kariim. dad meesha ku cusubtay subscribe dheh iyo gambaleel ku dhufsay wax kasta cusub ay ku soo gaaraan insha allahu tacaala. maanta runtii kama hadlayo sheeko dhacday lixdaniyadii ama toddobaataniyadii ama waayihii hore ama waagii dowladda iyo saan ahayn iyo kama hadlayo arrinta. maanta waxaan ka hadlaya sheeko guul oo haddeer dhacday oo waaqic keena ah welibana uu nool yahay qof kale. sheekadaasna waa wiil dhalinyaro ah weeye, waxaa la dhahaa camaar cumar, waa yar suudaaniya. muxuu ka bilaabay zero ayuu ka bilaabay ama taxta sifir ayuu ka bilaabay, haddana waa milyaaneer wey. see uu bilaabay, muxuu sameeyey? camaar cumar waa yar suudaaniya ku dhashay dalka sacuudiga. wuxuu ka dhashay usrad ama reer iska caadi ah oo maaragtay aakhir shahar ku nool, iska faqiirna ma dhahi karno laakiin reer iska xaalkooda maysuur ah ayuu ka dhashay. yarkan isagoo toddoba jira ayay sacuudiga ka guureen, suudaan ay aadeen. kabacdi aabihiisa shaqo ka helay imaaraat bay u wareegeen familigii. aabihii halkaasuu shaqeynay, yarkii iskuulkiisi secondary-ga halkaasuu ku dhameeyey. kabacdi jaamacad ayuu galay. runtii marka uu yaraa qof iska caadi u ahaa, marna iskuulkiisa aada marna kubadiisa iska ciyaara. wax barnaamij kale ama wax noloshiisa bedelay waqtigaa ma jirin. laakiin markuu jaamacadda galay ayay halkaa ka bilaabtay noloshiisa inuu isbedesho oo su-aalooyin fara badan isweydiiyo oo ah markuu jaamacadda galay dee waa taqaan qofka markuu secondary ku jiro meelaha iska caadiyay wax ihtiyaajaata iyo wax saasa ma lahan. laakiin markuu jaamacadda galay ayuu waayo arag noqday oo waxaa arkay dad jaamacadda la dhigato maalqabeena oo gawaari haysta oo magaranaysa oo shaqaysta oo business u furanayay. waxa markuu isweydiiyey wuxuu yiri anigu maxaa ka kala duway dadka, ama anigu maxaan dadkaas oo kale u noqon waayay. nin yarka isagoo jaamacaddiisa dhiganaya arrin baa ku timi, arrin weyn oo ah aabihiisii ayaa shaqada laga fanishay. shaqadii baa aabihiisii laga saaray, imaaraadka ka soo laabtay aabihiis. reerkii qofka biiliya waa aabahood, cid kale biisha ma leheen. wuxuu sameeyey, wuxuu yiri tijaarad balaan bilaabno. yarkii wuxuu yiri tijaarad baa haa okay, tijaarad maxay u baahan tahay? raas maal bay u baahan tahay. habar kastana waa yani tijaarad u bilaabi kartaa, business u bilaabi kartaa. raas maalkan ka keenaa waa ururiyay raas maalkii, reerkii, familigii, dadkii, cid kasta oo deen ka qaadan karno xataa waa ka qaatay. duu lacagtii markuu soo aadiyay wixii yalla mashruuc baan rabaa hadda inaan bilaabo. mashruuci baan raadinayaa. mid raba mashruuciisa inuu iibiyo ayuu raadiyay. marka xaafadooda waxaa jirtay meel lagu gado waraaqaha A4 oo la daabaco iyo maktabad, yani anagu saa u naqaan bugaagta iyo aqalmaanta iyo waxaa lagu gado. almuhim wuxuu sameeyey, yarkiiba u tagay, wuxuu ku yiri meeshan baan u baahnay. wuxuu yiri ninka meesha leh waqti uma hayo, wuxuu rabay inuu gado aslanba. okay buu yiri aniga iga gado mashruuca. mashruuci waa soo gatay. yarkii markuu meesha fariistay xafiiskii meeshii maktabadii markuu fariistay wuxuu isu maleeyay inuu adduunka leeyahay. 3 bilood kabacdi inuu milyaardeer noqonayo. runtii yarka 2 bilood kabacdi wuxuu ogaaday in mashruuckan uu yahay mashruuc faashil 100%. wuxuu yiri intii lacagtaada oo dhan kaa guban lahayd, kiraya waxaa ku bixi lahayd, alaabtan oo dhan aad meesha kasoo buuxisay, jumla ku gad, lacag raqiis xataa dadku heshay ku gad. muhiim mashruucan waa inaad iska xirtaa lanu mashruuc wuxuu noqday mashruuc faashil ah. yarkii markuu mashruucii xiray oo ku fashilmay, runtii waxaa ku dhacday nafsiyaad, xaalad iktiaab ayuu galay. familigii oo dhan waxay dhaheen adigaa reerka ugu fashilsan, adigaa reerka ugu liita. waan ku dhahnay ha bilaabin. dhinacna dadkii deenka qaatay
lacagteenina si waxay ahaayeen dad u dhow isaga maalin walba u arko. المهم يركي نفسيات باقي شيء وحسين أنا فاشلة مشروعا أنا كدم بأي فشل كيسي أنا ما عرفتي. المهم أرنتي ورنا سيقول صدول صاري مالما كمد ير صاحب كيس أيها ويدي حكيري سؤال عادي ويدي حكيني هو مشروع أنت بلعب مدرسة أساسي يركي ساسو أرقيا حاتري مشروع أنت بلعب مدرسة أساسي سكيري ماي مدرسين marka su'aashii baa maskaxdiisa ku wareegsay yarka si caadi ah u weydiiyay laakiin asaga su'aashii baa maskaxdiisa ku wareegtay su'aashii baa su'aalooyin kale ka dhaladay isagoo maskaxdiisa mushawash ay guriga aaday wuxuu isweydiiyay waay mashruuc maxuu fashilmay leesh mashruucu fashilmay waay anigu maxaa mashruuca u daraaseen waay inta aanan bilaabin المهم wuxuu sameeyay wax kale ma sameyn internet ku galay u baaray mashruuca daraaseyntiisa maxaa marka wuxuu ogaaday in mashruuca inta la bilaabin waa in cilmi loo hayo mashruuca cilmi loo leeyahay haddana wuxuu sii ogaaday cilmigaas in laga baran karo koorsooyinka ama dowraadka tadriibiga iyo warash camalka iyo bugaag inuu akhriyo ku saabsan yarkii meeshii yani kuma istaagin halka runtii uu dhex galay koors buu galay tadriibiya بعدي وأصعد أرنتي كورس كلو قاطي وقاعد كلو أخري ورش عمل بوك قيب قلي المهم وحو هلي حصيلة علمية علمي نمبوك اكتسابي حق بيزنس كاي معمول كيسي سيلو بلابو وحصول أضيقا المهم علمي قمكو اكتسابي وحو سري يلا هذا علمي بان ليه دهي بيزنس بلاب وفكري وحكو فكرة واقع فكرة عصوب بأهيد شركة عصب فورميا حاجة إنترنت كبا انفتاح كل دعي تذكرنا الويب سايت وباهنين شركة كاستا ويب سايت بوباهن تمركو حسري شركة ده عصب ويب سايت كان لهين ويب سايت وسمي وهو آدي دليرو ويب سايت سمية أو أي تي جاب وله شيء وحكير الشركة ده نيكانية ويب سايت وسمية هدو دينا إن شاء الله عمولة ديوحي عن هلنا كلا قيب صنو وهو آدي شركته بارا شركة ويب سايت لهين وقتها وقنعية وحكلها ويب سايت كي أهمية دولية هي وحلية وقنعية كبعد شركة دمكي كقنعده وراقه سينسا وحلا آدي للياردي أي أدريا باي إيميل بكلا حرير جرى ما هي متشرين جوب أما ميل أكو هجاجان أما ميل حفيظة ليه ساسو كوب بلابي مكو معاميل يا شيء حوجا راس مال يرمكو يا شيء وحسيري maan arinta waaqic ka dhigo oo meel waraaqo qaanuuniya iyo wax qaanuuni aan meesha ku furto المهم markaas waa mamnuuc bay ahayd oo ma furan karin waa loo diiday inuu furto way shuruudihii laga rabay lama imaanin marka wuxuu siri xafiis hoostag xafiisu tag la hadal la heshi hoostag hadhow shaqada markaad shaqaysid wixii aad meesha ka heshid lacag nisbo ku leeyahay xafiiska فيسك بو آدي الله شيء وحكيري ميل جوب كمبيوتر هذا يوحى أبو له شيء وحكيري أنا شغال كينيا أدين كو هوست جاي إن شاء الله تعالى سي قانونية سي أرنتي إذا وصعته هذا أرنتي ووسي صعته راس مال في عم بكهلي مش هذا هذا ماشي معاميل بكهلي راس مال بكهلي وحسين ماشي وحقه ميل كله جوب كله سميسو وكيس كينسو رج كل شقية ماشي عارض الواقع وادت كل شقين شري باي إيميل بكل حرير شري وأدرى مشروع ويصور دمعيان وسحوله أصير شركة دورتها لعقتي ولا ورقة صار كل شغلين تري فبعدي ميل يربو حكا فرتي ميل لها الصناعية وحق إمارات كتالة ووحو كان شقاله ولا شقيها هذيك شقالي ما كان لا شقيني مشروعي بقوين هذه الشركة دي با يسوي شيء إن كان في عنوي هلا قصو سميستو وحو أركي مشروعي صعنيه بعد فكرة باكو سو لعبة مسكح ديسا إن جوب أما حفيس وين وفرتو مكتب وين وفرتو وهدو دي هالكا دتك معاميلك لأنه وحبت معاميلك الآن هالكي بانكو سو هجاجنا أما ماشي هذا نو شيء أنكو يمانو أساقنا ميل ما رحتي عانى ملهن وفكروا حسيري هديان هذا الشركات راس مال كان هديان قريو شركات وين هديان فرتو عن قريو هدو دي ما فيعنا waxa fiican
qaab kale oo saan ii sheegay xafiis ba xafiis hoos tagaya. Sharikada baa jira fara badan, maktab bay kareystaan, qof walba xafiiskiisu halkaas sii dhigtaa oo lagu soo hagaaga. يعني hebel sharikadaas u shaqeeyo, hebel sharikadaas u shaqeeyo. waxaa laga yaabaa meesha maktabka aad joogtid in dhowr sharikadood ay ku leeyihiin xafiisyo, adana ay leeyihiin qaacad oo lagu sameeyo shirarka iyo waxa oo saacadii la kareysto. المهم ninkan saasuu sameeyey kabacdi waxa batay dadka u shaqeeya, waayo markay macaamiilka bataan shaqada markay badato daa'iman waa inaad badisaa dadka ku shaqeynaya. arrintu say u socotay oo u ballaanaatay oo u weynaatay hadhowdii wuxuu soo geliyay programmada iyo qaabka loo sameeyo iyo waa taqaan waqtigaas programmada ayaa aad loo sameyn jiray. muhiim xagga technology-ga wuxuu soo geliyay programmada iyo waxyaabo adeegyo kale soo geliyay meeshii waa u weynaatay. markaa wuxuu siri khalaas hadda waa inaan furtaa sharikad aniga gaari ah oo aan dadkan u shaqeeyo adeegyadeedan u sameeyo. sharikadii buu furay. sharikada markuu furay way u ballaanaatay, wadamada kale farac ayuu ka furay. shaqadii baa aada u socotay, shaqadii baa shaqo kale dhalisay, shaqadii baa shaqo kale ka dhalatay. Camaar isagoo ku jira mashruuciisa oo mashruuciisii ballaaranaya oo dhowr farac ka furtay wadamada kale iyo magaranaysa sharikadiisii tii technology ku saabsaneed, waxa bilaabay inay dad u yimaadaan oo macaamiil ay ka dalbadaan dhowr shay. يعني arrintaas waxaan u baahnay masalan markaad website-keed noo sameynaysid in iyo programka in video aad noo sameysid ama montage wuxuuna noo soo saartid. markaa waa fakaray wuxuu yiri waay aniga shaqadan aniga ii timi waayan dad kale u gudbinaya maan aniga aan furto sharikado kale oo sharikadaha kale aan sharikadeeda ku xiro oo si aan qofka markuu macaamiilka uu ii yimaado oo iga helo aniga dhowr adeeg aan u qaban karo isla markii. المهم wuu fakaray laakiin caqabad baa u timi. caqabada waxa weeye isagu sharikadan markuu sharikada maaragtay markuu asaasay sharikadan asaga ay ku ictimaadaa, يعني hadduu sharikad kale furo wuu ka mashquulaya sharikadana iskuma filna. wuu baaray wuxuu helay buugaag iyo koorsooyin laga hadlayo seebay mashruucaaga ama sharikadaada isku filnaan kartaa. wuu bartay mashruuciisii sharikadiisii ayuu ku tajaabiyey, sharikadii marka isku filnaatay wuu baxay sharikad kale furay montage ah, sharikadii baa isku filnaatay haddana mid kale uu sii furtay oo isku filnaatay. saasuu ku socday. su-aashu maanta waa maxay? Camaar Cumar halkuu gaaray? Camaar Cumar haddeer wuxuu haystaa majmuucad Royal Sky Group baa la dhahaa. waxaa soo hoostaga kaliya technology kuma saabsana kaliya, wuxuu leeyahay xagga muqaawalaadka iyo dhismaha iyo caqaaraadka, xagga macidaadka طبiga sida qalabada caafimaadka, waxyaabo fara badan. haddana wuxuu sii dhex galay xagga ghidaaka ama cuntada foodka. wuxuu asaasay silsilad mataacim ay burger, dadka imaaraad ku nool ayaa garanaya. taasna waa uu asaasay, haddeer waa u socotaa. yacni waqti yar ayuu ku asaasay intaasu sharikado oo welibana u socdaan oo haddana oo sii kordhinayo sharikadba sharikad isku filan. sharikadii waa asaasaya oo isku filnaanaysa, waa ishaasaya wuxuu ka dhigay sharikadii inay isku filnaato. wuxuu noqday qof khibrad leh. ma ahan Camaar maanta ma ahan dadkii qofkii faashilka oo lagu dhajiray faashilkii weeyay oo mashruuc intuu furay ku fashilmay. Camaar wuxuu noqday qof khibrad leh. Camaar wuxuu noqday qof cilmi u leh xagga waxbarashadiisu sii waday ilaa heer diraasaad culya ayuu sii gaarsiiyay master oo hadda PhD ayuu wadaa. bilcaks reerkiisii dhahi jiray faashil baa tahay haddeer tallaabo kasta marka rabaan inay qaadaan asagay la hadlaan ka waran arrinta bal ma noo fiicanta misamaya. inuu way jiraan dad ka waaweyn oo ka khibrad leh oo dad ka waaweyn way jiraan laakiin asagii wuxuu u cadeeyay inuu yahay qof aan caadi ahayn runtii. xataa dadkii ku dhahi jiray qof faashil aad tahay wax ma qaban kartid haddeer waa u tagaan waxay dhahaan waxaa saaran inaan furano ka waran arrinta businesska saaran inaan u dhaqaaqno khibradaadana si
marka waa u fakaray wuxuu siri hadda dadkan khibrad markay iga qaataan aan siiyo oo ku dhaqaaqaan way ku najaxaan waay anigu maxaan u sameyn waayey xaqiiba tadriibiya oo dadka aan tababaro بعدين wuxuu bilaabay inuu asaaso meel tadriiba ama xaqiiba tadriibiya oo dadka halkaa ka tababaro oo khibraadkiisa dadka uga gudbiyo muxaadarado waaweyn buu qabtaa hadda muxaadarada ugu dambeysa wuxuu ka qabtay Sacuudiga 450 qof baa ka qayb galay dad fara badan baa hadeer ka dambeeya asaga wuxuu ahaa qof faashila wuxuu noqday qof naajix ah oo mashruuc waaweyn hadda ku najaxay marka Camaar wuxuu noo yahay runtii qudwa anagoo dhalinyaro hadii aanu nahay si kastaba Suudaani xataa haduu yahay laakiin anagu Soomaaliyeed aanu nahay ninkan qudwad ayuu noo yahay waayo dhalinyaradeenna wuxuu u badan yihiin dad jaamacadda markay dhameeyaan shahaadadooda meel iska dhiga ama takhasuskiisa kuma shaqeynayo meel buu iska dhigayaa baagamuudu isku noqonayaa wuxuu sugayaa qof inuu ka shaqeysiiyo laazim waa inaad hadafkaaga ku dhaqaaqdaa markaad hadafkaaga ku dhaqaaqisid ama aad bilaabisid iska ilaali inaad bilaawdo adigoo jaahil ku ah tag cilmiga kasbo ha sugin intay macluumaadda ku imaanayso adiga baar internet baad haysataa website baad haysataa baar dhexgal aakhirkii waad heli doontaa koorsooyin dhigo muxaadaraad dhigayso aakhirkii waad heli karto xataa muxaadarada hadaad u malaynaysa waxa ka faa'iideen ka qayb gal laazim wax baad ka heli doontaa ama faa'iido yar baad ka heli doontaa oo noloshaada 180 darajo bedelisa إبداع لا إماو تطور وين اللي ماتا خبرة درادي مهم جدا وي سك استعداد علمي كسبتد واحد مسكح هذا قشطة إنه ولي جاهل أتكتيد لسه ولي جاهل أتكتيد قشو مسكح هذا شكرا السودان إنه نقدمت يركن عمار كمان أدبا نمهد لنا وايو نوسو قد بيي تاريخ ديسا isagoo dhalinyaro 20 jir ah oo bilaabay wax weyn isbedel weyn ku yimi noloshiisa dad badan ku ta'athuray Camaar ayagana noloshooda galay isbedel weyn xagga businesskooda iyo waxa aad baa u mahadsantihiin hadaad u baahan tihiin kooraska Camaar inaad ka qayb gashid koorsooyinku bixiyo iyo dawraadka tadriibiga uu bixiyo hoos baad ka heli doontaa insha Allah linkiga في النهاية aad baa u mahadsantihiin waan igu dheeraaday iga raali ahaada haddaad weli subscribe dhihin dheh gambaleelkana ku dhufasay wax kasta cusub ku soo gaaraan videogana like ku dhufo laano like marka aad ku dhufatid dad badan buu gaarayaa videoga oo marka dad badan say uga faa'iideystaan biidnillaahi kariim aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh